أنت جودهان إلهي مهدي بالشراء والنبض دواتا أيها كترته قبل كسول قارهان مقالة الأسعار تذكر هالصول هرمودكي سومالي لان تاريخيا هدي أي تاي يهدي ما أنت تايبه كوسوتان مقعد سومالي لان تاريخي سقيبت أول كوري ما أنت دواتا كترته وحن سويديننا محاكيني وحدوي هالكنا كعديه والعالم كانوا شيء عذر بدو شيء دواتا ما أنت كتير سلاس عانود وحكيري أرجع حسد عالمية طليانا هي ضدك ما أنت مظاهرات كاوضا وما وضعنا حمان هي النعيب أيو قبان جمهورية الصوماليلاند هي ضدك الصوماليلاند ودركوا دين بدأ وقبان وحمات له اللي قبل أو دبعتنا وين أولي أرجع حسد عالمية وحي سجاد ما وجود الشيء مدة 8 سنة أفرت قف oo hal doorka Soomaaliland oo hal kuwii dawladda shaqeynaya kuwa taageera ayay si gaad mawdish in badan argagixisadii khidada dhigtay oo kala hayd qorshe dheer oo istiraatiiji ah say dalka iyo gobolka khalkhal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb waxa dishay dawladda Soomaaliland Soomaaliland markay koobantay cid gaar ma aha marka waxa la abaarayay argagixisada u diyaar garoobaysay in ay burburiso maamulka iyo dawladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba u soo gashatay argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila mar wuxuu gashanayaa shaar aqoonyahana mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb oo bulshada abuu kula matalaya argagixisada iyo dadka fidmada wada waay maxay wada bini aadmiga ilaahay oo awlaya qaybood ilaahay jannada cadaab u sameeyay dadka ilaahay qaar wuxuu ku abuuray inay samaha wadaan oo horumar wadaan oo nabad wadaan oo bini aadmiga waxa dad iyo diin iyo dalba ku wanaagsan ka shaqeeya islaam markaa waxa abuuray oo shaydaanku hogaamiya mujtamac walba casri wala la joogaba waqti wala la joogaba in sharka ku foogan oo mar walba waxa wanaagsan burburiskeeda u toogahaysa waa wax caalamka la soo noolaan doona hadana jira waxay iyaga u faa'iido waxa ay doorayaan oo inay iyagu tooda oo qura ku maamulaan hadda mujtamaca ay fidmada ka dhex wadaan in badan baynu maqlaan kelmadda khawaarij la yidhaahdo waa fidmadii asxaabta soo dhex martay ee iskaga hor yimaadeen asxaabtii ugu waaweyneyd maanta tii oo kale dad wada oo aan yarayn oo taashooda ayaa abuuraya fidmada ka socota lascaanood ma wada shicibka Soomaaliland dhammaantood shicibkooda kala lamid yihiin waa dad wanaag doonaya wanaag iyo gobonnimada ilaa awliyaashooda soo dhaqmi jiray lagamana filayo waxa dhacdo kale shirka madax dhaqameedka ee lascaanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadada u ahaa madax dhaqameed kasta dad kasta oo islaam cid kasta oo wax garanaysa shirarka madax dhaqameedku iyo odayaasha fadhiyaan wuxuu ka taliyaa mar walba nabad wadajir midnimo iyo in fidmada laga hortago kama duwanaan doono shirka lascaanood waxgaradka iyo islaamka isugu tagaysaan oo arkayo in ay soo saari doonaan wixii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkiisa iyo dalkeena u dara oo ka hortaga fidmo mooyee kama filano inay baraay ka soo baxdo dowladda Soomaaliland oo maanta madaxdeedu halkan fadhido hadday tahay fulinta iyo xeerdejintii shalay aan ku joognaa anagoo dhan waxa uu diyaarinahay dhibaato kasta oo jirta wax kasta oo dowladda laga tirsanaayo inay si nabada oo walaaltinimo oo la wadaago oo loo siman yahay oo nin walba haygiisa keeno aynu kaga wada hadalno oo inagoo midaysan oo walaalnimo iyo danteena iyo wanaaggeena ka shaqeynayna aynu nabad xaalad ku soo celino
waxaan ka soo horjeednaa haddaan dowladda nahay qof kasta oo shar iyo fidmo wada qof kasta oo balaayo horseedaya qof kasta oo diidan nidaamka iyo horumarka arrinta lagu celceliyey ee dadka lagu dagaalgeliyey ee dowladda dadkaa dishay waxaa weerar dadka arrintaa rumaystay waxay u baahan tahay arrintaa xaqiiqadeedu way hor imanaysaa inaynu isla helno in somaliland waxgaradkeeda arrintaa la dhacsiyo wada iyo dowladda ay arrintaa ku eedeynayaan fagaarihii ay ku soo bandhigeen ka wada hadlahaayeen inaynu isla gaadhno ee cadowgu tuudoonayo isku keen dilo in aan loo dhigan uglaan ee ninkii qaba Soomaaliland dowladda waxay yeeshay cadaankeeda kooraman kii dilay oo hayo oo muuqdee inaad halkaas sugto laakiin aan loo dhigan uglaan waa fidmadooda waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliya maanta dhibaatada jirta waa inaynu nabad ku bedelnaa waa inaynu magaalada deganaansho ku soo celinaa waa inay carruurta iskuulka timaadaa waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegiisii la helaa waayo dee sabab aynu maanta dhibaato gudaheena u galaan ma jirto ereyga ah ciidanka Somaliland ha baxo ciidanka Somaliland buu cadowga ka ilaalin dalkiisa u ilaalinaya waa ereyga ay soo tuuraysa argagixisada doonaysa inay meesha fidma ka rido iyo buuq oo loo baneeyo ciidanku argagixisada iyo kuwa Somaliland dib u ilaalinaya kamana baxayo Somaliland oo daafacaya waxaan ku soo gabagabeynayaa baaqa nabadda ah oo inaynu waxaynu oo fulaan dhamaysano oo dhibaatada hore uga baxno ayaanu diyaar u nahay waxaan u mahadnaqayaa dadka nabadda ka shaqeynaya dadka arrintaa aad iyo aad uga dadaalaya waxaa ka soo noqday shalay gudoomiyaha golaha wakiilada oo hadda halkan ka hadlay war wanaagsan iyo waayeelnimo iyo si loogu hawlgalo oo aad iyo aad isu xakameeyay cid waliba ayaanu ka wada hadalnay taasaan ku shaqeynaynaa ciidamada Soomaaliya Somaliland waxaan ku ammaanayaa inay muujiyeen inay cadowga dagaalamayaan ee dadka Somaliland dagaalamayeen waxay muujiyeen inay reer Soomaaliya dadkooda yihiin oo xanaanaynayaan oo iyaga kuwa dhaxanta urdo ilaalaya ay yihiin ee aanay iyaga u qori karin wax xumaan ah iyo dhibaato ah way dhici kartaa marar badan oo isku dhacaan ciidamada amniga iyo dadku meel ma hargeysa ka dhacday burcay ka dhacday ergaabay ka dhacday beeramay ka dhacday waayo maxaa dhacaya dadka maxay arrintaas u dhacaysaa waxay u dhacaysaa marka mudaaharaad iyo safgaraaw yimaado ee dhalinyaro iyo dad xambaysan duminayaan dowladnimadii iyo hay-adihii dowladda ciidankeenu waa ka hortagaa waan u dulqaataa laakiin ma haysano qalabka la yidhahda maxaa qalabkii lagu hortagi waayo mudaaharadka lagu hortagayay ma haysano awoodeedina malihin markaa wixii dhacay iyo dadkii dhintay waanu ka xunahay waa ka tacsiireen haddana waa ka tacsiireynaa ka bacdi markay mushkiladda sii adkaatayna ciidanka waxaa u istaagay bannaanka si uu dadka loo nugduriyaan isku dhici waxaan ku soo gabagabeynayaa arrinta lascaanood waxaan ugu baaqaynaa nabad wada hadal iyo wadaadnimo marka hormar midba waa xaqiiqa dadka Somaliland ilaahda waa isku dal waa isku dan waa isku dad ma kala maarmi karaan inta midna kuma kala maarmi karaan marka sida caalamka mushkiladda dhexdooda u dhamaysto ay baanu dhamaysananaa dawladahaana diyaar baan u nahay nabad dulqaad dhageysi garqaadasho wixii xaqaad la taabto